dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton oo ay maanta doorteen waxaanay hambalyo kala duwan u direen gudoomiyaha si cusub ee golaha wakiilada iyo sidoo kale xildhibaanada kala duwan ee golaha wakiilada Somaliland ee doortay gudoomiyaha Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton. bismillaah waxaan u arkaa saaka waxa weeye si wanaagsan baan u arkaa waana taageersanahay dalkuna wuxuu u baahan yahay dalkuna dheelitir buu u baahan yahay aad iyo aad waxaan ugu farxay markii xaamid uu iscasilay waxa weeye ka tanaasilay aad iyo aad baan ninka ugu hambalyeynaya sababtoo waxa weeye wuxuu qudhiis u tulay dalku inuu isu miisaanaado waayo maanta waxa weeye wuxuu u baahan yahay dalku awrka haddii la raro oo waxa dhinac uu dheeliyo waa la isu dheelitiro maanta waxa weeye lascaanood bay naga maqan naafaynu ka nahay halkaa ninka keliya ee keeni kara ee wax soo celin kara anigu waxaan halka inuu Faraton yahay waa nin weyn oo waayaraga waa nin weyn oo waxa weeye soo jireena waa nin weyn oo waxa weeye experience wax badan buu ku soo kordhinayaa golaha aad iyo aadna ugu hambalyeynaya xildhibaanada doortana waxaan leeyahay xilkiini baa gudateene aad baad ni salaam waxaan u aragnaa guul soo hoyatay Soomaaliland waa soo dhaweynayna waa ku taageerayna nimankaasuna waajibkii dalka ay ku badbaadinayaan bay galeen xildhibaanada marka insha Allah wixii la jeclahay in nabadgelyo ka keenaa jamhuuriyadda Soomaaliya in nabadgelyo u keenaa oo wixii hawlo xaliya nabadgelyo soo celiya asiga ku dhamaata isagana waa hambalyeynana رئيس برلمان كلا دورتي هذا مراب برهان نقول صار ويننا هذه هاد بنو صار ويننا فرتونا ونوين كل مرة دي ماشى ما دار نواي مرس تيلا يرتو ما توقش غه ماشوا حلقو طرتي إن مضي هاد كمسؤول كهاد يكو هاد كمسؤول كتي أنت ما أدور على يسوع والله عليه ويحبي ينطق ما يسوع صارته مدحوين وأنا أتى مدحوين أنا أتى مدحوين الله شخيسه أو سير الله شخيسه أو عاد دمان مضى الله شخيسه ويحي وهجر هذا aad iyo aad baan ku salaameynaa waxaan ku leenahay si wanaagsan u soo dhawow adiga kuwa kale la doortay insha Allah dhamaantiin mada wada shaqeeya oo barnaamijka waxa la isii degan umada ugu shaqeeya wallahi waxaan arkaa guul soo kordhay Mr Faraton waxaan leeyahay wani weyn oo ruucadaaya in badan soo shaqeeyay muddo 50 sano ku soo jiray siyaasadda Geeska Afrika iyo Somaliland baashana way iska cadeydba marka waxaan leeyahay hambaliyaan leeyahay Somaliland waxaan leeyahay hambalyo gobolka Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo insha Allah taala gobolka Soomaaliland guul baan rajeynayaa soo noqod wanaagsan baan rajeynayaa waxaan leeyahay ninka Faraton wani weyn oo ruucadaaya runtii oo weyn oo ay araga baarlamaanku way ku mahadsan yihiin inay maanta masayrka ummadda iyo shacabka reer Soomaaliland ka taliyaan oo ninka ruucadaaya libaaxa doortaan waxaan leeyahay hambalyo aad baan hadaan nahay reer Burco iyo gobolka Togdheer iyo dhalinyaradii baan hadaan nahay aad baan u soo dhaweynaa Daawud Salaam Ciise gudoomiyaha maanta la doortay baarlamaanku doortay Yaasiin oo nin weyn oo ruucadaaya oo nin weyn oo qaranka in badan soo shaqeynayay oo nin weyn oo marxaladda maanta taagan ka saari karaya marka gudoomiyaha Yaasiin Xiir Faraton waxaan ku soo dhaweynayaa tagada loo igmaday oo nin isku wadi kara 82 xildhibaan ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo nin maalinta adag ka saari kara marka Yaasiin Xiir Faraton waxaan leeyahay hambalyo oo nin maalintii loo baahnaa yimi waan leeyahay marka waan u hambalyeynaa jagadaana uu qalma oo nin weyn oo muxtarin weeyaan oo qaranka in badan soo adeegayay Khaliil Barra Awraan warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Burco ee gobolka